musqusha anoo ku jira bismillaahi ma dhihi karaa waxay u baahan tahay inaan isweydiinno musqusha anoo ku jira maxaad ka wadaa musqusha waa laba dhismaheedii baan ku jiraa iyo dhexdaan fadhiyaa waan kaga jiraa baa kala laba ah dhexda haddaad fadhida laa bisin walaa kalaam lama ogola ilaahayna waa u cadhoodaa qofka isagoo xaaje gudanayo bartanka kaga jira hadla oo sheekeeya maqaamkaana maqaamkeedii maaha haddii lagu salaamana calaykum salaam lama dhaho banaanka dila soo istaago asalaamu calaykum lagu dhaho maadaan musqushi dul fadhiyo kaadida ku dhexda kaga jira calaykum salaam di maya maqaamul kalaam ma aha labada qof ay ku sheekaysanaysa labada musqulada suuxa ku kala jirana ama daduurka xaajada gudashada baadiyaha u baxeen halkaa fadhiye habeen intuu mugdigu kala qariyey xaajadiina gudanaya kuna dul sheekaysanayana fa in allaha yamqutu calaa dalik ilahi u caradaa buu nabigu yiri sala allahu alay ali wasalam taa lama ogola hadalka maqaamkeediina ma aha haddaad dharkaaga xidhato xaajadiina iska dhaqdo aad weysaysanayso musqul ma ku jirtaa mise kuma jirtid axkaamta musqushii meeshaad fadhiday weeye jiiraan baad la tahay xukmuljiwaar waa meeshii lagu xaaja gudanayey baad ag taaganta ma bannaan baa mise waa meel xidhan bannaan hadday tahay de halkan aad ku kaadido xagga kalena u jeedsatood weysaysato bisinkana qabata dee iyadoo hadalba ma laha labadan xaala waxay iska shabbahaan halkaagiibaad taagan tahay oo lugahan baad wareejisay midna waad fadhiday ama waaba taagnid oo taagni baad ku kaadiday ama waad fadhiday oo waad istaagtay kanna bannaankanaad godka ku kaadidayoo markaasaad xagga ugala jeesatay biyo haddaad xagga ku weysaysata duulduulkiisu ku soo gaarino bannaankan ciiddii kalaad ku weysaysanaysaa soose meesha un taagnidu maaha tan bannaanka ishkaal ma laha tan xiran ishkaal ma yeelanaysaa mise ma yeelanayso intaan garanayo wax nas sharciga oo cad oo xaaraantinimeynaya halkaa bismillah inaad dhahda ma jiro keliya bisinkii waa lagu amray haddaad weysaysanayso wax kaa xaaraantinimeeyey adoon xaajo gudanaynin oo dharkaagii qaba inaad bisin qabatana ma jiro cumar radiallahu canhu ardaahu baa musqul ka soo baxay isagoo qur-aan akhrinayo markaasaa ninku yidhi musqul baa ka soo baxaysaa qur-aan akhriyaysa wuxuu yidhi hooyadaaba adoo ciyaal yara waxaa kuu sheegtay nabiga xilligiisii baanu saa samayn jiray marka waxa wax la diiday waa markaad xaajada kor fadhido haddii la meesha dhexdeeda aad ku weysaysana waa qayb qabays leedahay qayb weyse leedahayna qaybtan waa qabays qaybtan kor fadhigana waa musqul wax dhibaato ah ma laha waxna sharciga xaaraantinimeynayna ma jiro billahi towfiiq